Suldaan Axmed bin Salim oo ah madaxa shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta ayaa markii ugu horeysay ka hadashay khilaafka dawladda federaalka ah iyo shirkadda DP World ee la wareegista dekedda magaalada Berbera. Suldaanka ayaa waxa uu sheegay in Somaliland in ay dal madax bannaan tahay muddo 27 sano ah, sidaas darteedna DP World aysan u joojin karin mashaariicda ay ka wado Somaliland. Hadalka dawladda federaalka ah waa kan isagoo ka hadlaya agaasimaha guud ee shirkadda DP World. تصرح بالحكومة الاتحادية لا يعنينا، وحكومة أرض الصومال دولة صار لها مستقلة. nama quseeyo waxa ay leedahay dawladda federaalka Somaliland waa dawlad madax bannaan 28 sano, waa meel xasilooni ah, dimuqraadiyadna ka jirto. mashruuceena wuxuu helay ogolaanshaha baarlamaanka Somaliland. ma awoodi karto in ay xukuumadda federaalka wax bedesho ama hadallo ay jeediyaan oo aan u joojinayno ma jirto, ayuu yiri madaxa shirkadda DP World oo la hadlay warbaahinta Imaaraadka Carabta. على أرض الواقع إلا مجرد تصريحات هم لا نستطيع أن نوقفها، أما على أرض الواقع احنا مستمرين وملتزمين بهذا المشروع